Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo laabasho wacan dhammaan asxaabta ku xidhan channelkan Somali Radiology Channel. Runtii labadii wiiga u dambeysay wax video ah oo ku saabsan radiology-ga maanan soo gudbin sababo personal awgood. Insha Allah caawa waxa aynu halkan kasii wadi doonaa casharadii radiology-ga ahaa ama caseski radiology-ga ahaa ee aanu ka hadli jirnay. Sidaad wada ogtihiinba runtii anigu personally Khaliil ahaan waxa aan aad u xiiseeyaa musculoskeletal radiology-ga ama qaybta radiology-ga la xidhiidha marka skeletal system-ka. Maadaama radiology qaybo badan uu leeyahay qofba meel uu jecel yahay baa jirta oo ay kaga dhigto. Marka aniga musculoskeletal radiology-ga ayaan more interested ahay. Sidoo kalena aan markaa professionally ama shaqo ahaan marka aan qabtaa. Laakiin insha Allah dad badan baa isweydiinaya sababtaan mar walba caseska aan soo gudbiyo ay badanaa u yihiin cases musculoskeletal. Runtii waa wax personal oo aan jeclahay anigu. Laakiin insha Allah waan isku dayi doonaa bal inaan mixed aan ka dhigo hadiiba aan wax soo gudbinayo oo caseska kale sida neurology-ga ama neuroimaging, body imaging, obstetrics, gynecology iyo waxyaalihii kaleba insha Allah inaan soo gudbiyo. Maanta case-ka aynu xaggan kaga hadli doonaa waa case runtii iska routine ah ama simple ah. Laakiin bal aan u baahanahay inaynu isbaraarujino waxyaalaha basic ah oo radiology-ga marka idea-dooda ama cilmiga radiology-ga. History-ga patient-kani waxa weeye waa 16 jir male ah oo marka adolescent patient ama ilmo yar oo 16 jir ah oo ka cabanaya marka suxulka midig inuu xanuunayo. Wuxuu patient-ku ii sheegay marka in qalliin lagu sameeyay 6 bilood ka hor. Laakiin to be honest with you marka sawirka aan fiiriyo ama adiguba aad fiiriso waxaad u jeedaa wax qalliin ah oo patient-kan lagu sameeyay sida inuu jabay oo kale oo fixation lagu sameeyay in aanay jirin. Marka I think waxaan u maleeyay marka in patient-kan marka dislocation uu ku dhacay oo joint-iga inta ay kala baxday kadib la isku celiyay marka. That is the only solution aan filayo qalliinku sheegaya inuu yahay. Laakiin imaging-kiisa markii aanu fiirinay kumanan arag wax indicate gareynaya inuu jabay oo kale ama fracture oo qalliin lagu sameeyay. Aan u soo noqono xaaladda patient-ka ilmaha yar wuxuu ka cabanayaa baan dhahnay in suxulka midig uu xanuunayo ama right elbow joint-iga inuu pain ay leedahay. Sidoo kalena stiffness ama joint-iga inay dhaqdhaqaaqeedu uu yaraaday ama angulation-ka iyo sidii ay u shaqeynaysay. Patient-ka x-ray baan ka qaadnay. Marka elbow x-ray, AB projection, lateral projection iyo medial oblique projection. Okay. Sida aad u wada jeedaanba case-kani waxaan dhahnay waa case iska simple ah ama routine ah. Laakiin waxyaalaha aynu xasuusinayno xagga dambe aynu kaga hadli doonaa. Ugu horreyntii aynu discuss gareyno x-ray-gan waxyaalaha ka muuqda. Anatomically saddexdan lafood ee joint-iga sameeya ama mainly elbow joint-iga waxa sameeya laba lafood, lafta humerus-ta iyo lafta ulnada loo yaqaano. Radius-tu iyadu kama qayb qaadato inay sameyso marka elbow joint-iga. Lafta humerus-tu laba process bay leedahay anatomically. Qaybta xagga radius-ta xigta waxa loo yaqaanaa capitulum ama capitulum sida tiraahdaba. Xagga qaybta ulnada xigtana waxa loo yaqaanaa trochlea. Space-kan u dhaxeeya marka lafta ulnada especially olecranon process-ka iyo humerus-ta space-ka u dhaxeeya ayaa ah marka space-ka cartilage-ka ay ku jirto ama carjowda ay ku jirto loona yaqaano elbow joint-iga. Okay. Normal anatomy markaan ka hadlayno. Hadda laakiin waxaad u jeedaan in totally loss uu ku yimid ama ay luntay marka space-kii u dhaxeeyay labada lafood, lafta humerus-ta iyo lafta ulnada. Sidoo kalena line-kii madoobay ee joint-iga sameyn jiray in completely effacement uu ku dhacay ama marka ama ay baaba'day oo meesha ay ka baxday. Waxa kale oo lagu arkayaa sawirkan AB projection-ka multiple osteophytes badan inay marka ay ku dhacaan joint-iga hareeraheeda, especially lateral projection-ka sidoo kale hadaad eegtid olecranon process-ka xaggan ay ku dhamaato
osteophytes baa ku yaala fara badan. Posterior aspect of the humerus iyo anterior aspectigaba labadaba waxaa ku yaala marka waxaa ku yaala osteoarthritis, osteophytes. xaggan waxaa anatomically marka la jaagarinaya haddii fracture uu jiro, anterior fat ama fatka wuxuu leeyahay marka anterior fat pad baa loo yaqaana xaggan dambena waa posterior fat pad. Marka haddii sometimes fracture oo kale uu jiro, sometimes indicationka keliya ee sababi kara waxa weeye inaad aragto anterior fat padka iyo posterior fat pad signka. Okay, so typically waxyaalaha aynu u aragno hadda sawirkan waxa weeye inuu jiro osteoarthritis inuu jiro. So sababtaan idin leeyahay casekan waa case basic ah because osteoarthritis marar badan baynu channelkan aynu kaga hadalnay. Video hore aynu sameynay oo aynu ku sharxayno osteoarthritis-ku waxa uu yahay iyo meelaha uu ku dhaco. So haddii aan dib isu xasuusino, osteoarthritis-ku waxa weeye waa xanuun ku dhaca ama caabuqa waxaan dhihi karnaa jointiska ama laabatooyinka oo ay dhacdo marka in ay baaba'do ama ay dhammaato marka cartilage-ka ama carjawda u dhaxaysay laba lafood. Osteoarthritis-ku meel walba oo jirkeena ku yaala uu ku dhici karaa, laakiin mainly boqolkiiba waxaa la yidhaahdaa 85 ilaa 95 wuxuu ku dhacaa marka weight bearing jointiska ama laabatooyinka miisaanka jirkeena haya, especially miskaha iyo jilbaha. Laakiin in elbow osteoarthritis aad aragtaa badanaa waa rare, sida jilibka oo kale ama sida misigta oo kale marka caan uma aha. So sababta aynu case-kan usoo qaadanay maanta waxa weeye ilmahan yari micnaha waa 16 years old ama waa 16 jir, mana laha symptomska osteoarthritis-ka. Marka maxaa sababay in osteoarthritis-ka uu dhaco? Well, haddii aad xasuusato video aynu hore usoo gudbinay, osteoarthritis-ka waxaynu qaybinay laba qaybood. Qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa primary ama idiopathic osteoarthritis, waana ka badana aad taqaanid ee aad ku aragtid dadka waaweyn ee gaboobay inuu ku dhaco markaa in carjawdii iyo jilbihii iyo miskihii marka ay ka dhammaato. Laakiin qayb kale oo osteoarthritis ayaa jirta, waxaana loo yaqaanaa markaa secondary osteoarthritis. Badanaana waxaa sababa haddii history of injury qofka uu soo gaadhay mar hore ama dhaawac uu soo gaadhay jointiga. So siduu patientkani uu ii sheegay, waxa ku dhacay marka qalliin hore in lagu sameeyey, and as I'm guessing waxa weeye dislocation in ay ku dhacday marka elbowgii baa kala baxay ama suxulkii baa kala baxay, then waa la isku celiyey. Marka isku celintii lagu sameeyey iyo dhaawacii hore uu soo gaadhay ayaa wuxuu u sababay in marka osteoarthritis uu ku dhaco ama secondary osteoarthritis. Multiple osteophytes, sclerotic borders, especially jointigii trochlea-dii iyo olecranon process space-kii ay samaysmeen ayaad u jeedaan. Sawirkani waa medial oblique projection, wuxuu si fiican usoo saarayaa olecranon process iyo trochlear space-kii. Marka trochlea waxaad u jeedaan halkii ay ka gelaysay in completely jointigii ay baabaaday, sidoo kalena sclerotic border inay samaysay ama ay caddaatay sababta oo osteoarthritis-ka dartii. Sidoo kalena osteophytes fara badan inay ku yaalaan qaybta medial side-ka. Case-kan waa very simple runtii, laakiin keliya waxaan rabay inaan idin xasuusiyo sida osteoarthritis-ku marka uu u sababi karo haddii qofka injury uu soo gaadho uu dhici karo, especially young age. So muhiimaddu waxa weeye haddii aad aragtid qof da' yar oo laakiin osteoarthritis jointigiisa ku dhacay, ama ha noqoto hibka ama ha noqoto elbowga ama jilibka ama dhabarka meel walba, always xasuusno inay badana ay tahay maadaama oo dhaawac hore uu soo gaadhay, not only in aging process ama qofkani uu gaboobay because waa qof dhalinyaro ah ama ciyaal ah, laakiin most likely waxaa sababaya marka previous injury ama previous history of fracture. So thank you so much inaad daawatay clipkan yara soo duubay. Insha Allah waxaan isku dayi doonaa bal in cases kale oo interesting ah weekend gudihiisa aan soo gudbiyo. Haddii aad ka heshay videogan, subscribe de, like tana saar, asxaabtaada medicalka ama radiology-ga aan la wadaag. Thank you so much. Salaamu calaykum, have a wanaagsan.